وهجاك داوديال halkaad warkaasi kala socotaan waa stuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi qodobada wararka dibadda aan idinku haynana waxa kamid ah wadahadaladii nabadeed ee Taliban ayaa la shaaciyay inay burbureen wadahadalada nabadeed ee Pakistan iyo Taliban ayaa laga cabsi qabaa inay fashilmaan kooxda Taliban ayaa hadda u muuqata inay laba garab u kala jabaan kadib markii ay golaha sare ee Taliban sheegeen inaan lagala tashan doorashada hogaamiyaha cusub kadib markii uu geeriyooday Mullah Mansour ayaa la aaminsan yahay inuu taageersan yahay wadahadaladii dhawaantii dawladda Afghanistan iyo hogaamiyaasha Taliban ay ku yeesheen Pakistan bishii la soo dhaafay Shiinaha iyo Mareykanka oo kulamadaasi riixayay ayaa waxay sheegeen inay weli rajo ka qabaan inay kooxda ay ka qayb gali doonaan wadahadalada Jimcaha soo socda dawladda Pakistan ayaa dhankeeda ka faa'iideysanaysa kulamada oo wajiga koobaad ee dalkeeda lagu qabanayo waa tahay daawadayaal waxa intaasi nagaga dhan wararkii aan idinka haynay daafaha caalamka oo idinka imanayay stuudiyaha Kalsan TV ku leeyahay magaalada Nairobi warkana waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Iglan Saalax intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida iyo amaana Allah